annagoo ku hadlayna magaca beelweynta Subeer Awal ee ku dhaqan gobolada Saaxil Hargeysa iyo Togdheer iyo Gabiley halkan oo ay joogaan maanta qoorweyntii iyo madhaafankii beesha Subeer Awal marxaladda dalkana aynu ka dhereegsanahay geedi socodkii ay soo socotay iyo mugdiga ay gashay waxaanu fariintii ugu cuslayd u diraynaa dadweynaha reer Somaliland oo aanu la wadaagayno badbaadinta dalka sidaa darteed khudbaddii duurxulka lahayd ee ka soo baxday musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ee taariikhda suntan uu ku dhigay maraaxilkii istabajooga ahaa iyo isduldhigii iyo dulqaadkii faraha badnaa ee xisbiga wadani soo sameeyey waxaanu marag cad ka furaynaa in aanu taageersannahay khudbaddii ka soo baxday musharaxa madaxweynaha wadani waxaananu kala qayb gelaynaa ku raacsannahay maadaama ay xukuumaddu xidhay obshaniskii sharci oo dhammaan iridii sharciga iyaduna ay mudaharaadka ay ka dhigaysa tahay inaannu la qaadanayno kana dhammaynayno ballanqaadkii xisbiga wadani iyo baaqii ka soo baxay musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro inaannu la qaadannay diyaarna aanu nahay Somaliland inteeda kalena aanu kala mid nahay wuxuu yidhi heesbaa waxay la jirtay lulubkii biyaha galay wuxuu lamalagdoodaba marka laasku uu golo laydh kuma jawoobo Subeer Awal ayaa maanta inaanu ugu dambayno ma inaynu ugu horraynaaba maanta waxaanu horraan yeelaynaa baaqa dhaqangelintiisa waxaa maanta halkan oo ay bishu tahay 6 bishii 8aad isugu yimid Subeer Awal beesha la yiraahdo oo fara badan oo madax iyo mijaba leh waxaana ay halkan ku wada qadeeyeen iyagoo calool baadhanayay kana hadlayay iskana wareysanayay wadciga wadanka maanta ka jira ee la wada ogyahay ee la wada socdo taa iskaga warrami mayno dadweynaheena la qaybinayo laga dhigayo qabaa'ilka ee la kala qoqobayo waxaanu u sheegaynaa inaanay qolana nin u xidhnayn dabadeetana waxa weeyaan xafladda qadada maanta aanu Subeer Awal ahaan lahayn waxaanu kaga tashanaynay khudbaddii u jeediyey murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiguba xirsi xaaji cali waxaana aanu isku raacnay dhammaantayo inaanu ka qayb qaadanno annaka iyo cidaanu matalaaba mudaharaadka waayo dhici doona ee la soo sheegi doono waqtigiisa wali aan la qabanin waxaana nagu kalifaysa taa dawladdii aanu waliba anagu ka soo jeednaynu isxigsiinaynay ee aanu dadka kale ka xigsiisanaynay oo dhannaba dalkii u wadi weyday kadib markay dhannaba u wadi weyday mustaqbalka inanka burco jooga iyo mustaqbalka inanka Hargeysa jooga iyo Gabiley jooga iyo Caynaba jooga waa isku mustaqbal waa isku hadaf waa isku mid in xamar lagu celiyo dagaal dhacana uma baahna in meel kale laga tuuro jar laga daadiyana uma baahna nin kaliya inuu ku shaqaystana uma baahna arrinkan noocaasa waxaanu leenahay soo jeedinaynaa beesha Subeer Awal waxay ka taagan tahay mudaharaadka inay taageertay ayaanu maanta isku raacay arrinkaas wuxuu baahan yahay inaan loo kala harin ee dalka la badbaadiyo Soomaaliland ay waxba kuma dambeeyaan musabixiyo ina kaahin labadaasay ku soo ururtay dawladnimadii laba shakhsina dawlad noqon maaya waxaanu leenahay laba shakhsi bay ku soo ururtay dalka wixii ay dawladnimadii loo dhiibtay waxay ku soo ururtay laba nin oo magacyaaloo askari oo la yiraahdo musabixiyo ina kaahin dawladnimo halkaasay fadhiyaan maxad dadweynuhu la soo noqdo wixii ku tabceen iyo karaamadoodii